runtii waa mashruuc weyn oo bulshada Soomaaliyeed ay u baahnay oo aan rajaynayno sida loo sheegay inuu haqabtiri doono baahida caafimaad ee dalkeena ka jirta oo la heerarka maanta caalamku u tiigsanayo aqoon ahaan iyo xirfad ahaan waxaan u rajaynayaa mashruucan maanta halka laga dhigay inuu Ilaahay barakeeyo ka dhigo mid sidii loogu talagalay u hirgala ummaduna ay intifaacsato meel kasta ay joogto runtii waad ogtihiin baahiyaha dalka Soomaaliyeed ay qabaan waa baahiyo aad u fara badan muddo dheerna ay aad u dhibtoodeen xilliyo kala duwan weliba deegaanada tan 30 sano oo dawladda la lahaana ma aysan ka soo gaarin mashaariic dadku waxtar u leh muddadii dambe oo dalku xaaladaha adag ku jirana hadda bulshada Soomaaliyeed baan la qabnay duruufahaas kala duwan ee jiray dadaalka ay dadka Soomaaliyeed ay geliyeen siday noloshooda u soo kabi lahaayeen runtii taariikhdu way xusay doontaa qof walba kaalinta uu ku leeyahay iyo waxa uu ka qayb qaatay marxaladaha ganacsiga uu soo maray waxaan ku faraxsanahay inuu maanta u gudbay marxaladihii maalgashiga oo laga gudbo ganacsiyadihii daruuriga ahaa oo loo gudbo sidii hay'adaha waaweyn ee dhaqaalaha kobciya adeegyada waaweynna bixiya in maanta la gaaray iyadoo kuwa bangiyada iyo isgaarsiinta iyo mashaariicahaas ay horay ula jaanqaadeen bulshada in warshadaha iyo caafimaadka iyo tacliinta heerka sare ah iyo waxyaabaha kale bulshadu u baahan tahay si nolosha adduunka aan ula mid noqonno bulshadeennuna ay u hesho xasilooni iyo deganaan cid kasta oo jecel inay ka qayb qaadato dawladda Puntland waxay cadeynaysaa inay gacmo furan ku soo dhaweynayso inay tasiilaadka u baahan tahay fulinay siin doonto inay dhiirigelin siin doonto haddii Ilaahayno mashruucan iyo mashruucyada kale ka mid ah mas'uuliyiinta kale iyagana nala jooga ee ka yimid waddanka Carabaha Sacuudiga iyagana waxaan gacmo furan ku soo dhaweynaynaa inay iyaguna ka qayb noqdaan maalgashiga ee horumarka laga sameeyo